xafladani lagu abaalmarinayay hooyooyinka ku guuleystay damaanad qaadka cuntada ama wax soo saarka beeraha oo sanad walba ay si wada jir u soo qaban qaabiyaan wasaaradda beeraha ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka dalkeena Itoobiya hay'adda caalamiga ah ee Oxfam iyo hay'adda localka ah ee Zera ayaa ujeedada xafladan waxa ay tahay sidii loogu dhiirigelin lahaa hooyooyinka beeraleyda ah ee guulaha iyo natiijooyinka ku dayashada mudan ka soo hooyay dhanka wax soo saarka beeraha iyo damaanad qaadka cuntada isla mar ahaantaana lagu siin lahaa abaalmarino kala duwan ayaa waxa ay ka dhacday magaalada Dirdaba hooyooyinkani ka qayb galay tartanka beeraleyda oo dhinacyo badan leh isla mar ahaantaana lagu eegayay wax soo saarkooda iyo inta ay leegtahay hayntoodu ayaa xubnaha ku guuleystay ee laga soo kala xulay deegaanada Soomaalida Hareerida iyo ismaamulka Dirdaba ayaa waxa xaflad si heer loo soo agaasimay oo ka dhacday magaalada Dirdaba ugu horeyntii ka hadlay marayaha wakaaladda iskaashatooyinka maamulka magaalada Dirdaba mudane Gabayo Tilaahun waxaana ugu horeyntii uu si diiran ugu soo dhaweeyay xafladani hooyooyinka beeraleyda ah ee ka kala socda deegaanada Soomaalida Itoobiya Hareerida iyo ismaamulka Dirdaba waxaanu sheegay in dadaalka hooyooyinku ku tusinayo sida bulshada dalkeenu dadaalka u saareen sida ay wax ula soo bixi lahaayeen isla mar ahaantaana uga bixi lahaayeen saboolnimada intaas kadib ayaa waxa halkaas lagu soo bandhigay tartankii ay soo galeen hooyooyinka beeraleyda ah ee ka socotay deegaanka Soomaalida Itoobiya deegaanka Hareerida iyo ismaamulka magaalada Dirdaba waxaana halkaas mas'uuliyiintii ka soo qayb gashay si wada jir u gudoonsiiyeen abaalmarinta sanadkani hooyooyinka guulaha ka gaaray wax soo saarka beeraha abaalmarintaas oo isugu jirtay lacag iyo shahaado sharaf waxaana intaas kadib halkaas ka hadlay hooyooyinka abaalmarinta la gudoonsiiyay iyagoo sheegay in aad ugu faraxsan yihiin abaalmarintani la gudoonsiiyay kana waramay isbedelada noloshooda ee dhanka wax soo saarka beeraha iyagoona ballan qaaday inay sii xoojin doonaan wax soo saarka beeraha qaybna ay ka noqon doonaan dadaalka uu dalkeenu ugu jiro sidii uga bixi lahaa saboolnimada aad baan faraxsanahay dareenkayguna aad buu u faraxsan yahay waxaanu ka soo bilownay nolosha kow haddana heer federaalka iyo hay'aduhuna shilimaadaan baanu maraynaa haweenka kale waxaan odhan lahaa sida naba wax soo saarka loo istaago waxa la qabsado ilaahay hal la aamino dhulka waxa la gashado dhulka waxa laga soo saarto hal la dhergo dawladuna haydin garab istaagto waxaan aad iyo aad u salaamahayaa dawladda sharafta leh ee nashilimaadaysa munaasabadan oo sanad walba la qabto ayaa noqonaysa mid lagu dhiirigeliyo guud ahaanba hooyooyinka beeraleyda ah sida ay u soo xoojin lahaayeen wax soo saarkooda dhanka beeraha isla mar ahaantaana ay hooyooyinka kale ay ku dayin lahaayeen Faarax Cabdi telefishinka caalamiga ee STV maamulka magaalada Dirdaba.